kii uu soo bilaabmay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga. Waxa laga yaabaa maanta inaad jeclaan lahaydeen inaan ka hadlo dalka waxa ka jira xaaladda dawladda mucaaradka dawladda meesha kala marayaan laakiin waxba idinku soo kordhinayaan arintaas waxba idinku soo kordhinayso waqtiga ku dhumina waxaan u baahanahay xal jidri ah in laga hadlo xal jidri ah xal dhaba oo ummaddu ay ku xalismi karto in laga helo maxaa yeelay siyaasadda haday naqato qof kursi haysta iyo qof ku dhigan oo raba inuu ka rito waxba soo ma kordhinayso soo beentay waxaan u baahanahay aragti qaran u baahanahay haddii hadda aniga intaan Soomaaliya meesha raba aan ka digo shabaab aan ka nabad galo oo nin qabiil ugu dhib aan ka nabad galo oo mid cadaalad darro ugu sameeyaan ka nabad galo maxay iga maqan ya xogaa yar oo ambulaas maanta isaarta ugu filan taas ugu filan waxa maqan waa intaas yaani dhadhanka ay yeelanayso dawladnimadu taas waay intii aan ka shaqeynaa al raba marka ka waran hadaan dhahno marna waxa iska ma shaqeynayna aa dadka ka shaqeey jiray galbeedka meelaha ururdaayay carabta meel lacag keentiyo halkaanku ma ciidan keenani waxaas ma shaqeynayaan dad badan aan xoogaa siyaasadda markaan ka sheekaysano yaa waxa dhigi jiray dawlad hebel waa ka soo horjeeda dawlad hebel waxaan dhigi jiray marka Mareykanka arkaysi inuu xoog badan talateeda aniga lagu ma dhisin marka waa inaan taladeeda aniga madax banaanada aan ku tashadaa nafteyda way fahamteen Soomaa macnaha waxa loo wadaa dalkan waxa lagu dhisi karaa tala Soomaaliyeed dadka kale kalmay karaan warniga koob iyo hanesta haaf ma ku dado dari kartaa maxaa kale ku kalmay kartaa laakiin hadda adiga iska fadhid maamaayo waxa jirta waxa la yiraahdaa ma aqaan la wada yaqaano laakiin waa maamaayo Soomaali ah sac taqaan Soomaa qofkii iska lahay sac marka xoolaha abaartu ku dhacdo oo neefku uu kici waayo waa la kalmayaa neefku soo istaago marka ninkii iska lahay haduu dawlad uga istaago adigana lagu keenay inaad istaajisid soo ma istaagay moralka ka dhimanaba saci rabti inaad kiciso ninkii iska lahay dabad uga tagaa daaratid gadaal ugu dugaasha Soomaa annaga marka qarankan hadaan Soomaaliya annaga dabada ku dhigan annaga la rabaa inaad wada ka sii dabada yaani ka qabano oo ka cinoon istaajina loo baahan yahay waxaan la rabaa fikir xura in la yimaado reer hebel qolo hebel koox hebel xaq la iska dhigo na soo bixi weysid soo aragna dhibkeeda waxa dhib iyo mashaakil ahayn ma keen ka baxdo aragti qaran oo dadka miday karta ummadana u adeeg karta loo baahan yahay qofka raba ha hogaamiyo qofka loo gartaa hogaamiyo laakiin waa inay jirtaa aragti qaran oo dawladda shaqeynaysa iyo qofka mucaaradka ka wada dhaxaysa hadda is weydiino maxaa Soomaali ay ku heshiisay oo lama taabtaan ah ma sheegi kartiin waagi hore waxaan dhigi jirnay midnimada hadda oo aragteen meesha ay taagantay midnimada waa muqaddas hadda inta tiraahdo afka lagu goosan ama soo beentay maxaa heshiis ku naa marka inaan Soomaalina heshiis ku naa taas intaas waa huba inteena inaan Soomaalina oo Soomaali dawladda Maxamed Siyaad Barre markay burburtay waxay ahayd 91 ilaa 2000 doorashooyin waa dhaceen oo mesela yani laakiin markii ugu dambeeyso wax isdaba gala ay yimaadaan 2000 ugu horeysay saas ma 2000 hadda maxaan joognaa 2017 waxa haynaa meeqa madaxweyne soo martay أريشوا شن واي شن مدحونا صامرت هذا مش قدرت خصب شن مدحونا صامرت وحقبض واجرا هروا الله صعدا لكن ماشي أهرب المجونا مصابنتي ماشي أهرب المجونا وآمن سنة هاي ديمقراطية إنه صعته والله يسدورته وسنة بدل يسدورته سنة بدل حلك يسوي رجيء لسكو عاوية دولة لماذا Shariif Sheekh Axmed ayaa dalka soo hogaaminayay xilli marxalad adag ay jirtay gaar ahaan caasimadda Muqdisho iyadoona xilligaasi Muqdisho lagaga adkaaday kooxda Al-Shabaab oo inta badan Muqdisho gacanta ku haysay Salman Jamal Saeed TV caalamiga Universal magaalada Istanbul.